fiirsanaysi wallahi farlaata ka saacoy meesha waa liigu garaaca wax nolol ku meystay adii ma dhalin yahay ma lacagta iga soo dirtay maxaa meesha markasta igu fiirsataa hooy ilaahay ka cabso ila socda ii soo jawaab ad degdeg iigu soo jawaab ilaahay kugu dheeri hooy farxi ilaahay kugu dheeri hooy meeshan hooy igu daaban wallahi bilaa hooy nolol meesha ku meystay 24 ka saac wallahi hooy meesha waa liigu dilaa oo meesha hooy wallahi meel isku dhacay ma oo dad cadaba hooy la jooga tani waxa way Farxiye Cali oo ku nool magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa muddo 5 bil ah gabadheeda Amal Maxamed Xasan ku haysta dalka Liibiya magafa ka dalbada inay bixiso 12,000 oo dollar balse gorgortan dheer kadib markii dambe u sheegay inay bixiso 10,000 oo dollar iska dhaaf bixinta lacagta tiradaas dhan waxa ku adag in ay caruurteeda kale u hesho waxa ay cunaan oo waxa ay shaax ku karaysaa meherad yar oo aysan dhaqaale ku filan ubadkeeda ka helin rajada kaliya ee Farxiye leedahay waa in dadka Soomaaliyeed ay ka caawiyaan sidii ay gabadheeda Amal uga bixin lahayd gacanta kuwa ay ku tilmaantay arxan laawayaal mar walba u soo duuba codadka gabadheeda marka ay garaacayaan waa ay qaylinaysaa xanuun dartiis waxaana ka jabay gacan intii ay garaacayeen kuwa gacanta ku dhigay Farxiye Cali waxay dadka Soomaaliyeed ee fariinteedu ay gaarto ka codsanaysaa in qof walba wax uu awoodo ku taageero waxa iga haysta magafe wuxuu igu xukumay inaan 10,000 oo dollar dhiib ana 10,000 meelan ka dhiib ma awoodo mana haysto codad badan ay soo duubtan waa kuwaana codadkeedii waxa ay magafa haysto markii tireen ay isdhahnay waa iska leedahay magafa ma haysto markii dambe waxa ogaanay inuu magafi haysto soo garaacayo markii dambe ii soo dirayba ali qad ma leeyihiin ay isticmaashiin iyo waxaas intuu yiri aada gabadha haysto horta codkeeda ima qashiye asagoo markaas buu ushu ku boobsiinay hooyada tiribu ushu qabatay كون وحوي يجلس بلعبة 12,000 دولار 12,000 تيجي كينها ما بأوده به مقايدر الله يا شيخ عن كريا 12,000 دولار حقيقي كينا مالك كانوا مأوده خد المصري كان لح قلا قف أبي وح يسيبه قف البوحي يقول هذا عرابة تيدي هي ستاو ضدك أم بأسكت باتي سنين وحالو جست تشردل قبصة شقط كل قبصة شو أسكت جفتها سلايا كل مقفل قبره قبصة إني كيف يوضع الله أعلم لكن هذا وحى أقدر دل عنه ويكتشبنتها Amal Maxamed Xasan waxa dalka Itoobiya ka waday oo tahriib ku qalqaaliyay dad la shaqeeya magafaha sida ay sheegtay hooyadeed Farxiyo fadlan caawi hooyo Farxiye Cali oo muddo 5 bil ah aan ka jeefan codka gabadheeda Amal oo garaacis joogto ah lagu hayo way ogtahay Amal xaaladda dhaqaale ee hooyadeed haddana waxa ay ku qaylinaysaa lacagta bixi hooyo hadda hoos ay madaxa u dhigtay hooyo Farxiyo waayo rajadeedu ma fiicna haddii aan laga soo gaarin عادت كان قبل عن قدك إنا استعمال مركور ويجيت قبل يفتح استعمال من ديرته أيضا ده كير كوكير استعمال ويجيت حق مركي تكتيري ماشي زاك أنت إدي كهري كتها مركب سش ما هو صادق صانيك وما تصام هذا حنك عد صنع وحين مسلم تشيل مسلم له وأيضا قناية إن إلى بحيان العطس أنا وهدي fadlan caawi hooyo Farxiyo oo sii faafi muuqaalkan kuna taageer wixii aad awoodo